waxaa galabta garoonka weyn ee degmada Balcad ka dhacay kulankii aad ku xiisaha badnaa ee u dhaxeeyay Muqdheer iyo sidoo kale Iridoole kulanka oo ahaa kulan ay markaasi labada kooxba ee markii ugu horeysay isku soo xaadireen finaalaha kama dambaysta tartanka heerka labaad ee degmada Balcad kulanka ayaa ahaa kulan aad u xiiso badan maadaama ay labada kooxoodba maalmihii ugu dambeeyay diyaar garow aad u weyn ugu jireen si ay u ciyaari lahaayeen kulanka ayaa waxaa soo buux dhaafiyay mas'uuliyiin aad u fara badan oo ka kala yimid Hirshabeelle iyo sidoo kale degmada Balcad waxaa sidoo kale goobta soo xaadiray taageero aad u fara badan kuwaas oo aad ugu riyaaqsanaa qaabka ay wax u socdeen si kastaba kulanka ayaa wuxuu ku soo idlaaday gool iyo waxba ay ku awood sheegteen naadiga Muqdheer kuwaas oo markii ugu horeeyay soo tiigsaday heerka kama dambaysta ee tartankan Muqdheer ayaa sanadkii ugu horeeyay ka soo qayb gashay tartamada laga furo degmada Balcad ayagoona markaasi ku heray heerka gruubaha balse sanadkan wacdare ay muujisay awgeed ku soo tiigsatay kama dambaysta tartanka heerka labaad ee degmada Balcad kulankan ayaa laga diiwaangeliyay iskoorar aad u fara badan maadaama ay Muqdheer markii ugu horeysay soo xaadirtay finaalaha misana ay ku guuleysatay sanadkan waxaa goobta ka hadlay mas'uuliyiin oo ka mid yahay gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee degmada Balcad gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada Balcad macalinka kooxda Muqdheer iyo sidoo kale mid ka mid ah lajanada degmada Balcad ee Waraji Sports Balcad inta aan barnaamijkan oo kale aan ku kulmi doono waa Jilani Cali Muxuu Kamaaru oo idin dhahaya Soomaaliya Sports hormar leh